gunaanadka ama xidhitaanka kulankan labada casho u socday in warbaahinta gobolka Togdheer ka howlgashay aqoon kororsiga ahaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiintii tababarkan guud ahaan bahageysay oo ugu weyn yahay Yunus Cali Nuur Yusuf Ibrahim Warsame in yasraakisha ka socota hay'adda Kabaal ee iyaduna maalgelinaysay in aqoonta halkan ka dhacday in aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kulan noocan oo kala iskugu nimaadno oo aan kaga faa'iideysano aqoon baan ku celinayaa waxaanu baranay aqoon baahayd in Yunus Cali Nuur in waliba aan anigu book u qoray oo what's your view la yiraahdo aan hore u dhigtay in macallinkii barana Yusuf Al-Casaaha ilaa jaamacadda Burco sanad dowlad journalismka ku dhiganay in waxa waliba ii sheegay Yunus Cali Nuur maalin Hargeysa ku arkay inuu bookgiisii ballaarinayo waxaan leeyahay bookga noo soo dedejiyay in maxay haytay in inta markan ka imaado in waa tababarkii aniga ugu horeeyaan Burco ku gal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 9 sano kadib anoo wariyaa markii aan bilaabay saxaafadda in ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier intii Kaysa Axmed Digaale uu sarkaalka ka noqday gudoomiye ku-xigeenka uu soo gaaray goboladan bar tababaradooda laakiin hore uma bay soo gaari jirin in hadeer uu gaabinayaa in waxa lagu daydaa oo muunad noqda oo dadkiisa haga hadba ninka awrka ka horeeya ay socodkiisa leey bariyahan dambe wariyaasha Soomaaliland aad baa loo xilxilay macnaheedu waxay ahayd in wariyuhu magac kuba si yeelanayo xariganba oo laga sheekeenay in xarigaas in lagu dalaco oo heerka lagu gaadhana in waxaan u maleynayaa markii xuuto la xilay ee haddana madax saxaafadda Soomaaliland noqday ee uu maxkamad galay ayuunba maxay haytooyin aad baan uga xumahay in hay'adda xuuto kale uu hogaamiyo saxaafadda Soomaaliland waayo isaga maxkamad la geeyay inaan dambiile ahayn bay hadina hogaamiyo in waa daliil aan soo jeedinayo guud ahaan basool waa sax ama khaldanaado ama saxsanaado laakiin inaan dambi gelin inuu hogaamiyo aan ku dayano ayay ahayd in Kaysa Axmed Digaalana sidku gobolada bari soo jaray waan uga mahad celinayaa dadaal loo leeyahay